falaayo fara badan ayaa la rajeynayaa sida ayam ay sheegtay in bisha saddexaad bisha afraad bisha shanaad ilaa iyo bisha lixaad la boogsiin doono falaayada aad u badnaan doonaan sidoo kale waxay sheegeen in kiisas fara badan falaay ah inay gacanta ku hayaan waxaana sheegay ninka u qaabilsan qalada dib u dejinta gaar ahaan ayanta falaayo u qaabilsan ayaa sheegay inay dardargelin doonaan falaayo fara badan insha Allah bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh asxaabtaan jeclahay meelowda asxaabtaan jeclahay meelowda dunida joogtiin ku soo dhawaada qaxootiga TV waa walaalkeen Maxamed Daacad isku soo noqod wanaagsan maalmahan dambe soo mashquulay insha Allah haddana waxaan dib u soo laabanay insha Allah wararkeena taxanaha ay ku saabsanay dib u dejinta insha Allah joogto ayaa heli doontiin haddii ay banaydmo insha Allah waxaan ku bilaabi doonaa insha Allah qodobadeena ugu doorroon ay ku saabsan dib u dejinta insha Allah iyo sidoo kale raashin qaadkii oo saddexda hore si toos ah u socdo waxaana la marayaa berito talaado ah oo ku beegan taariikh 5 ah wuxuu noqon doonaa maalintiisii afraad ayaa loo dareeri doonaa raashin qaadka sidoo kale jadwalka raashinka waa la bedelay maalmihii waxaa lagu soo kordhiyey maalmaha sabtida ayaa la qaadan doonaa maalmaha axad bas ayaa laga nasanayaa laakiin waa hore caadiyan waxay ahaan jirtay 5 bari oo kaliya isniin ilaa jimco la qaato laakiin hadda waxaa lagu soo kordhiyey sabti ayaa lagu soo kordhiyey waxaana loogu dan leeyahay in oo ninkii soonka la gaaro soonka ayaa lagu dan leeyahay in laga carro maadaama soonka xilli kuleel uu jiro sidaas darteed marka qolada raashin qaadka saddexda u qaabilsan hay'adaha samafalka gaar ahaan WFP waxay qorsheeyeen in ay macnaha ay boobsiyaan maadaama taariikh 12 la rajeynayo inuu soonka bisha barakeysan ee ramadaanka uu bilaaban doono haddii ay banaydmo sidaas darteed saas ayaa maalmaha sabtida lagu soo daray insha Allah haddii uu leexdo dhankaasi wararkii ugu dambeeyay dib u dejinta maalmahan dhaaf shaqo fiican ay ka socoto sidoo kale RRC Africa dad badan ay wax u hagaajinayaan sidoo kale waxaa dad loo balaminayaa CIS badan ayaa la rajeynayaa sidoo kale qorshe kale cusub ayaa jiro CIS meeshii Nairobi loo aadi jiray insha Allah sida ay sheegeen qoladan RRC Africa waxaa dib loo bilaabi doonaa CIS oo muddo fog u dambeysay 20 on lagu maro CIS lagu maro 2015 ilaa 2014 ayaa u dambeysay in dhaaf lagu maro CIS laakiin 2016 waxaa la bilaabay in loo qaado CIS lagu soo maro Kakuma dadaal dama Nairobi laakiin hadda insha Allah sida ay sheegeen qolada RRC Africa maadaama kiisaska la boobsin doono in ay dhaaf oo lagu mari doono CIS sida la sheegay insha Allah waana arki doonaa sida ay sheegeen haddii qorshe isbedelaan insha Allah muuqaalada xiga ayaan soo sameyn doonaa laakiin sida ay sheegeen warar hoose ay sheegayo oo ka soo baxday hay'adda RRC Africa oo qaabilsan CIS-ta oo u bugarayso dadka maadaama CIS-ta Nairobi lagu qaadi jiray hadda waxaa la rajeynayaa in dhaaf lagu bilaabi doono sidoo kale waxaa jiraan caafimaad ayaa la marayaa dad caafimaadkii oo labaad maraya dad markii horeysa caafimaad la marsiinayo inkastoo caafimaadkii sida xawaaraha ugu socon jiray oo hadda la yareeyey maadaama yar la yareeyey maadaama loo yareeyey sababtaas darteedana falaayo badan ayaa la hayaa falaayada ayaa hadda la badinayaa sida ay intay qaybta lacagta socdaalka immigrationka ay sheegtay kiisas fara badan ay gacanta ku hayaan falaayo sidoo kale waxaa bilowday orientation dhaqanka ayaa socdo dhaqankaasoo la marsiinayo dadka 3 maalmood ee dhaaf ku marayaan dhaqankana si fiican ayuu u socdaa sidoo kale dad badan ayaa la balmay isbuucan hadda ku jirno dad ayaa u dhamaaday dad ayaa arbacada bilaabi doono waa isdaba joog sidii caadiyan caafimaadkii joogto u ahaan jiray maadaama caafimaadkii dad fara badan ay mareen haddana waxaa la rajeynayaa inuu falaagana saas u badnaan doono dad badan ayaa loo burgareeyey oo marayo hadda maalmahan dhaqan markay maraan kadib waxaa loo burgaran doonaa insha Allah falaagooda loo diyaarin doonaa ninka Ilaahay u qadaro kadib waxaa laga xareyn doonaa aaliyamada qofkii aalin laga xareey kadib marka farihiisa nadiif la dhaho kadib warqad soo baxdo wadanka uu bixilay wadanka Kenya kadib la qaadi doono in loo qaadi doono wadanka Ilaahay uu calfay Mareykanka ama Canada wuxuu doon laakiin hadda Mareykan ayaan ka hadlaynaa qodobkan waxaa dowladda saaran doonaa waa Mareykan dadka dhaqanka maray waa Mareykan dad muddo badan sugay way dad mar dhow cusmaayeen kiiskooda mar dhow soo maray CIS laakiin waxaa u fara badan dadka CIS-kooda mar hore ahay oo Donald Trump saameeyey COVID-19 haddana waxaa laga caray Donald Trump intuu soo laaban ka hor ayaa la rabaa falaayadan faraha badan ee gacmaha lagu hayo in la daadiyo la boobsiyo laakiin balse waa nasiib waa calaf ninka Ilaahay u qadaro kaliya ayaa baxayo haddii Ilaahay calafkaada ku qoran oo falaay sugayso nasiibkaada isku sugaysaa haddii Ilaahay ku calafan Ilaahay uu ku dardargelinayaa insha Allah dhammaan ummadda
وحمر يا رجينا إنه إلهي بوفسي أسكت دعينا سيدة فلانين مراد يا ليه مراد كيني إن شاء الله بريها نسكع عجزين يا بل إنه إلهي على جسر ولا سوي قاضو والفاتحة اللي سوغر الصحابة جعلها يسكت دعينا إن شاء الله المقال كان جواب يمر يا سيدة فلان المقال ده إنه حرنا إن شاء الله إنه المقال كان وحرب أنت لواتين فرسعوا جاري محاربة إنه فرقعوا سيدة اللايفتا الشيء نقول فتا سيدة الكومنت على وصبحيه سيدة ضد بدنا يا كومنت كسبحي سؤال بدنا نسوي دي وسامح وين تسجل صوتها مشغول برتدان جاي عجز حتى إن شاء الله محان دب صوفير دونا كومنتية دي بس سؤال يسوي دي يعني دب بوجي دونا وحي قرال تجار قرال يسوق دونا وحي كلامنا إن شاء الله مقالة ينتصر من دونا إن شاء الله ما أنتوا وحيردوا إن شاء الله لو مقالة متويرتها مسدح مقالة يكسب سند بدجتها سيد التحرها سعود جريا إن شاء الله صوب دونا إيش بركة سنة ونوسو فود لذا إن شاء الله قرشين بدنا يعني سمين دونا هنا صحابتها إن شاء الله سيد مني دافين وبلالكين محمد داعد مركلا يعني يوسو عنا إن شاء الله وانا ما سدين آدي يا ما سدين وحي سؤال قبتي ديراده قيبت كومنتي إن شاء الله لينك تابت سيدة الله حلوب بوغدو قيبت تيك توك فلو هالنصر وهالصار فلو اللي كوب لينك على صوت إن شاء الله وانا